بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرفنا بخدمة كتابه المجيد وحبب إلينا السهر على العناية بدراسة كتاب الكريم ونشر علومه وتراثه وهديه، ويسر لنا الصعاب في سبيل ذلك، والصلاة والسلام على خير عباد الله ورسله الأبرار سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن عمل بهدي الكتاب والسنة إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى جل شأنه في كتابه القرآن الكريم: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العلي العظيم. walaalayaal, meeshaan waxaa nooga bilaaban haya tafsiirka qur-aanka kariimka ah 114. waxaannu casharkeenna ugu horrayda ku qaadanaynaa fadaa'ilulqur'aan. qur-aanku fadaa'isha uu leeyahay fadligiisa aad u faraha badan ayaan dersigeenna ugu horrayda uga hadli doonnaa. kabacdina waxaa noo bilaaban haya insha allah fasirka suuradaha qur-aanka ayaa noo bilaabanaya insha allah. qur-aanka kariimka ah walaalayaal, alfaaddiisoo la barto, fasirkiisoo la barto, lagu camal falo, laysku daweeyo, wuxuu anfacayaa adduunka makhluuqa ku nool oo dhan. ilaahay intuu abuuray baa loo soo dejiyey. makhluuqa ilaahay oo dhan baa ku intifaacaan, midka nool iyo midka dhintay intaba thawaabkiisa iyo barakadiisa iyo raxmadiisu way anfacayaan. waa raxmad ilaahay noo soo dejiyey. wa nunsilu min alqur'aani maa huwa shifaa'u wa raxmatun lilmu'miniin. waa caafimaad ilaahay oo noo soo dejiyey qur-aanku walaalayaal. ilaahay waxa weeye caafimaadkiisa ilaahay ha nagu anfaco oo kuwii ku intifaaca ilaahay ha naga dhigo. qur-aanka kariimka ah sidaas weeye. ilaahay raxmad ou soo dejiye weeye. wa nunsilu min alqur'aani maa huwa shifaa'un wa raxmatun lilmu'miniin buu ilaahay yidhi. waa caafimaad iyo naxariis ilaahay mu'miniinta u soo dejiyey. raxmaddaasuna makhluuqa dhan bay wada gaartaa. asxaabtii rasuulku waa xataa qofka jirran bay ku akhrin jireen. waxay sidaasoo kaleeto nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuu isku akhri jiray adkaaraha noo imaan doono birabbinaas iyo suuratulfalaq iyo suuratunaas iyo insha allah waa ka sheekay doonnaa markii fasirkooda aan marayno. qur-aanku marka waa kalaamullah, kalaamka ilaahay. sida ictiqaadka saxiixa qabana makhluuq lama odhan karo. muctasilo ayaa odhan jiray. waa qur'aan kariim ah. innahu la qur'aanun kariimun fii kitaabin maknuun. waa qur'aan wanaagsan oo kitaab la dhowray ku sugan buu ilaahay yidhi. laa yamasuhu ila almutahharuun. mana ay taaban karaan dadaan dahaaro qabin, oo dadka aan daahirka ahayn oo aan weese qabin ama janaabada qaba ama gabadha xaa'idada intaba looma oggola inay taabato ayagoon weese qabin ama ay akhriyaan. qofka aan janaabada qaba iyo qofka xaydka qabaaba inay akhriyaan looma oggola. tanziilun min rabbi alcaalamiin. qur-aanka haddana waxaa laga soo dejiyey ilaahay xaggiisa subxaanahu wa tacaala. waa nuur ilaahay noo soo dhiibay qur-aanku walaalayaal. qiyaamadana qofka ku camal falaw xujow u noqonayaa huu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. qofka ku camal fali waayana xujow ku dul noqonayaa. qur-aanku qofna waa u doodaahuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam, qofna wuu ku dul doodahayaa qur-aanku. ilaahay ha nugu daro. waalqur'aanu xujatun laka kuwa nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam. qur-aanku ama xujow kuu noqonayaa ama xujow kugu dul noqonayaa ayuu rasuulku leeyahay sala allahu calayhi wasallam. haddaba qur-aanka kariimkaa oo inaan fasirno 114 suuradood fasirkooda aan qaadanayno, waxaan ka bilaabaynaa qaybta hoose maadaama dadka aqoontoodu insha allah hoosaan ka bilaabaynaa. maadaama aqoonta ay u badan tahay bulshada aqoonta qur-aanka, qaybaha iyo suuradaha hooseeya si qof walbaaba oo ula socdo waxaan ka bilaabaynaa suuratulfaatixa ka bacdina suuradaha hoosan qur-aan ka soo bilaabaynaa
oo suuratu naas, suuratu falaq, suuratu waxa weeye falaq, suuratu likhlaas, suuratu lmasad, suuratu nasri, suuratu lkaafiruun, suuratu lkawthar, suuratu lmaacuun, suuratu quraysh, suuratu lfiil. sidaasuu noogu soco doonaa insha allah. tartiibkaas ayaan ula soco doonnaa oo bulshada aan rabnaa inay uga faa'iidaystaan idanka ilaahay. qur-aanka marka kariimka ah mawduuceennaan ugu horreeya tafsiirka waxaan ku qaadanaynaa caawa insha allah fadaa'isha qur-aanku kariimka ay leedahay, barashadiisaoo la barto iyo bariddiisa ummadda la sii baro iyo fasirkiisaoo la bartaa, intaba iyo iskugimaadka la iskugu yimaado dhammaantood fadliga ay leeyihiin. marka koowaad qur-aanku waxa weeye qur-aanka kariimka waa kalaamullah. sanadkiisu wuxuu ka yimaaday min allaah, wuxuu ku sugnaaday looxulmaxfuud, waxaa ka soo qaaday malaa'igtii, waxaa loo keenay nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam, waxaa ka soo qaaday rasuulkiina asxaabtiina ummadaha ka sii dembeeyo taabiciintiibaa ka sii qaaday. qolo walbaaba qolay ka soo baratay. waxa weeye 7 qiro ayaana nabigeennu ku akhri jiray oo lagu soo dejiyo yidhi nabigu qur-aanka calayhi salaatu wasalaam. waa nuur ilaahay ou noo soo dejiyooo nabiga nalo kugu soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam qur-aanku. wuxuu ilaahay aayad qur'aana nagu yidhi, yaa ayuhannaas dadow, qad jaa'akum burhaanun min rabbikum, xagga ilaahay waxaa idinkaga yimid xujo, waa nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam. wa anzalnaa ilaykum nuuran mubiinaa, waxaana idiin soo dejinnay nuur cad ayuu ilaahay yidhi. nuurkaas cad oo mubiinka oo xaqa caddaynaya waa qur-aanka kariimka ah. qur-aanka kariimkaa marka walaalayaal waa inaan barannaa oo aan alfaaddiisa barannaa oo aan tafsiirkiisa barannaa oon axkaamtiisa barannaa oo aan ku camal falnaa oo aan jaamaca ixtiraamnaa oo aan akhriskiisa iyo dhegaysigiisa ixtiraamnaa. meel walba in la dhiga ma ahan. jaamaca waxa weeye meel sarrayda ayaa la dhigaa, meel nadiifahoo daahira baa la saaraa. kalaamkii ilaahay inuu yahay oo qiyaamada aad rabto gacanta midig in lagaa siiyo kitaabkaaga, ilaa kitaabka ilaahay qofkii ku dhaqma ayaa kitaabkiisa gacanta midig looga dhiibaa. ilaahay ha nugu daro liiskaa kuwa ka qayb gala oo waxa weeye ee kitaabkooda laga siiyo midigta, ilaahay ha nugu dare marka kitaabka ku camalfaliddiisa iyo wanaaggiisoo la ilaaliyo oo qur-aanka fasirkiisa la barto, muslimiintana la sii baro oo la sii faafiyo ayaannu isku dardaarmaynaa. qur-aankana adigoon aqoonin inaad iska tacbiirido ama aad tidhaahdo waxaan ka fiirinayaa qawaamiistii iyo qaamuusyaalkii iyo digshinariga baan u fiirinayaa luqada carabtii iyo oo iskool baan soo dhigtayoo waan iska tijaabinayaa aayadda macnaheeda ma ahan. waa inaad naqli iyo waxa weeye barasho iyo mucallim u leedahay. maxaa yeelay adduunka iyo koonka inta joogta nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ugu fadli badnaay. rasuulkana calayhi salaatu wasalaam fasirka ou qur-aanka ama aayadda asxaabta u macnaynayo macallimkiisa jibriil ayuu dhihi jiray waan soo su'aalayaa ii kaadiya, iyadoon loo waxyoonin oo uusan malaggu u soo sheegin. nabigu iskama hadli jirin calayhi salaatu wasalaam. wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa. nabigu hawadaysa iyo wax iskaga soo dhaca kuma hadlo. hadal kastoo ku hadlayaahi waa waxyi loo waxyooday rasuulka calayhi salaatu wasalaam. haddaba walaalayaal qur-aanka waa inaan ilaalinnaa macnihiisa iyo fasirkiisa oon ilaahay uga cabsannaa subxaanahu wa tacaala. sidaas ayaan muslimiinta gebi ahaan u dardaarmaynaa. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay fadliga aad u faraha badan oo qur-aanka kariimkaahu leeyahay. xadiid oo warinayo imaamka la yidhaahdo imaamulbukhaari iyo abu daa'uud iyo tirmidi oo saxaabiga la yidhaha cuhmaan binu cafaan oo ka warinhayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam. wuxuu yidhi cuhmaan binu cafaan nabiga wuxuu ka maqlay calayhi salaatu wasalaam asagoo rasuulkeennu odhanaaya khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu nnaas. waxaa idinkugu khayr badan ruuxa qur'aanka ilaahay barta, ruuxa qur'aanka barta ummaddana sii bara. ama fasirkiisii baad baratay ama alfaaddiiyaad baratay oo qur-aankii baad xifdinaysaa. markaad baratona waad ku camal falee, ummaddiina waad sii baraysaa.
markaad ku camal fasho oo aad barato qur-aanku qiyaamada wuu imaanayaa waa kuu shafaaco qaadayaa wuu kuu marakacayaa wuu kuu doodayaa haddaad laakiin ku camal falin weydo ood kitaabka ilaahay ku xurmayn weydo ood amarkiisa qaadan weydo adiga ayuu kula doodaya ku qabsanayaaba xadiidkaas wuxuu noo caddaynayaa barashada qur-aanka la barto fasirkiisa iyo xifdintiisaba ummaddana la sii baraahu inay tahay midda khayrka lagu yeelanayo walaalayaal waxaa idinkugu khayr badan buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu nnaas marka qur-aanka waxa weeye sidaasuu khayr u yeelanayaa qofka waxa weeye qur-aanka ku dadaala xadiid kale nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka qur-aanka xifdisan iyo qofka aan xifdisanayn oo asagoo gefgef ay ku adag tahay akhrinayo oo jaamicii ka fiirinaya iyo qofka dusha ka dureerinaya oo ku camal falaya mar walbaba labadaas qofood asagoo rasuulku ka hadlaaya calayhi salaatu wasalaam xadiid caaisha ay ka warisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo waxa weeye a'immadii ay wariyeen waaweynay wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam almaahiru bilqur'aan maca asafarati alkiraami albarara waaladii yaqra'u alqur'aana wahwa yashtaddu calayhi lahu ajraan ayuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam rawaahu alarbaca qofka qur-aanka dusha ka yaqaana malaa'igta safarada la yidhaahdo biaydii safaratin kiraamin barara malaa'igta safiirada ah oo qur-aanka ka soo qaada looxulmaxfuudka ka soo qaada ayuu macooda yahay darajo weyn buu leeyahay asafarati maca asafarati alkiraami albarara ruuxa laakiin qur-aanka akhrinaya wahwa yashtaddu calayhi asagoo qur-aankiiyo tacaahudaya oo ku adag yahayo markuu akhrinayo ku laalaabanaa aayaddiya ku adag qofkaas laba ajiruu leeyahu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam oo ajirka aad ku dhib mudanayso iyo wuxuu ka helayaa waxa weeyaan ajirka kaleeto akhrinta labadaasuu helayaa marka waxa weeye akhrinta qur-aanka aan ku dadaalno camalfalkiisana aan ku dadaalno ixtiraamkiisana aan ku dadaalno fasirkiisoon barannana aan ku dadaalno dhammaan waxaan muslimiinta aan u dardaarmaynaa nafteenna iyo nafteennaba in kalaamka ilaahay iyo tafsiirka qur-aanka oo aannu akhrin rabno insha allah oo la bilaabahayo oo fasirkiisa hoos laga soo bilaabayo in bulshadoo dhan ay ka faa'iidaystaan aan ku camal falno aan ka faa'iidaysanno aan faafinno aan waxa weeye ka dhiganno zaadka aakhiro qabriga iyo qiyaamada iyo aakhiro sahayda aannu u qaadanayno oon ilaahay ugu dhowaanayno inaan ka dhiganno walaalayaal taa ayaan isku dardaarmaynaa insha allah wuxuu rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam ummadda u qaybiyey qayba ilaa 4 qaybood gaarahaya wuxuu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam mathalu lmu'mini aladii yaqra'u alqur'aan mathalu ludurujati buu yidhi riixuhaa dayibun wa dacmuhaa dayib ruuxa mu'minkaa oo qur-aanka akhrinaya oo mu'minna ah qur-aanka kuna camal falaya rumaysan akhrinaya wuxuu la mid yahay geed la yidhaahdo udruja aad buu u caraf badan yahay dhadhankiisuna aad buu u wanaagsan yahay waa geed dhadhankiisu waa macaan badan yahay xagga karkiisuna waa fiican yahay muuqaalkiisuna waa qurux badan yahay sida geedkaasoo kale qofka qur-aanka akhriya nabigu geedkaas buu miithaal uga dhigay calayhi salaatu wasalaam qalbigiisii waa wanaagsan yahay nuurkii qur-aankii baa ka soo baxahaya afkiisa macaan iyo caraf baa ka socota ilaa waa kalaamka ilaahay buu ku dhawaaqaa wax kastooo lagu dhawaaqo kalaamullaahi afdalu hadalka ilaahay baa ugu fiicnaan badan qaybta labaad oo dadka nabigu uga hadlay calayhi salaatu wasalaam wa mathalu lmu'mini aladii laa yaqra'u alqur'aan mathalu tamrati laa riixa lahaa wa dacmuhaa xulwun qof mu'mina oo qur-aankiiba aan akhrayn laakiin waa mu'minoo waa rumaysan yahay mase akhriyo jaamicii gurigiisuu dhinac ka yaallaa halkaasuu ku caariyaystay oo boor ku fuulay ruuxan waa mu'min waa rumaysan yahay jaamac laakiin ma akhriyo wuxuu la mid yahay timirtan caadiga ahoo la cuno kaluu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam timirta haddaad dhadhamisana waa macaan haddaad urisana caraf ma leh
saasuu la mid yahay caraftii iyo nuurkii qur-aankiyaa kaa maqan bal qaybtaasna fiiri walaalayaal dhibka haysta qaybta saddexaad oo nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadda ka hadlay wuxuu yidhi wa mathalu lmunaafiqi aladii yaqra'u alqur'aan mathalu rayxaanati riixuhaa dayibun wa dacmuhaa murun ruuxa qalbiga munaafiqa ka ah oo afka ka dhahaya muslimaan ah qalbigana nabiga ka inkirsan calayhi salaatu wasalaam munaafiq kaas baa la yidhaahdaa ruuxa munaafiqa ah oo qur-aanka akhrinhaya laakiin qalbiga aan ka rumaysnayn geedda la yidhaha reexaanada ayuu la mid yahay reexaantu waxa weeye macnaheedu waa geed oo waxa weeye begel kasta oo kullu baqlatin dayibati riix kalwardi yaasamiin wareexaan reexaanta iyo xandalada iyo waxyaabaha nuucaasa ayaa lagu tilmaamaa waxaan rabaa waxa weeye waa wardiga iyo geedka la yidhaha iyo geedka reexaanta caadigaho la yaqaan iyo kaasuu la mid yahay oo markii la fiiriyo de waxa weeye reexaantu waa soo karee riixuhaa dayib laakiin dhadhankeedu waa qaraar qalbigiibuu ka hadlaysan yahay waay qofkaas qaybta ugu dambayda wa mathalu lmunaafiqi aladii laa yaqra'u alqur'aan mathalu lxandalati xandala laa riixa lahaa wa dacmuhaa murun ruux waa munaafiq qur-aankiina ma akhrinayo wuxuu la mid yahay qaradameerta ama geedka la yidhaha qaradameerta oo baadiyaha iyo ka baxa xandalada la yidhaahdo udaygna male dhadhankeeduna waa qaraar xadiidka rawaahu lkhamsa ayaa warinaya marka nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaasuu ummaddii u qaybiyey kalaamka ilaahay wax kasta oo layskugu yimaado asaga ayaa ugu wanaag badan walaalayaal waa inaannu ka faa'iidaysannaa oo tafsiirka si fiican loo xifdiyo oo qur-aanka kariimkaa la xifdiyo oo ummadda la sii baro oo guryaha lagu aqriyo oo wakhti kasta aad jaamaca waxa weeye halkoo suurad iyo wax haba yaraatee inaan wax oon ka akhrinno oon isku dayno qur-aanka ku dadaalna ayaa loo baahan yahay ruuxa qur-aanka akhriya qiyaamada markuu yimaado waxaa loo dhihi doonaa huu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam yuqaalu lisaaxibiilqur'aani iqra' qur-aanka akhri baa loo dhihi doonaa wartaqi jaranjarada jannada kor warattil tartiibi qur-aanka kamaa kunta turattilu fi dunyaa sidii markaad adduunka joogtay aad u tartiibi jidhoo kale u tartiibi fa inna mansilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uhaa aayadda ugu dambayda oo aad xifdisan tahay aayadda ugu dambayda ood akhrin kadho meesha aad ku geydo ayaa waxa weeye gurigaaguna uu noqon doonaa weeye akhri baa leeyahay sidii adduunyadaba aad u akhri jirtay waxa weeye aqri meesha aad ku dhammaydo ayaa waxa weeye akhriska ku geydo jannada gurigaaguna noqonaya rawaahu xadiidkana abu daa'uud baa wariyey wa tirmidi wa saxaaxahu waana saxiix yeelay ruuxa marka qur-aanka waxa weeye xifdiya sidaasuu wanaag u helayaa oo ku dadaala qiyaamada ruuxa qur-aanka akhriya waalidkiisii xataa iftiin iyo nuur badan bay helayaan man qara'a alqur'aana wa camila bimaa fiihi ulbisa waaliduhu taajan yowma alqiyaama daw'uhu axsanu min daw'i ashamsi fii buyuuti dunyaa waalidiintiisii xataa nuur baa loo xiraa qofka qur-aanka akhriya waalidkiisa nuur baa ka soo baxaya nuur baa loo xirayaa ruuxa qur-aankii aan ku camal falayn oon akhrinayn wuxuu ku tilmaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam ina aladii laysa fii jawfihi shay'un min alqur'aan kalbeyti alkharib ayuu yidhi qofka qalbigiisa qur-aanka wax ka midaba haba yaraatee aan lagu arag guri kharaaw ah ayuu la mid yahaa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam guri kharaabay oo kale ayuu la mid yahay marka qur-aanka waxa weeye in akhriskiisa aan badinno oo aan fasirkiisa baranno oo xifdigiisa aan ku dadaalna isku dardaarmaynaa wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiid uu warinayo cabdillaahi binu mascuud xadiid uu ka wariya nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man qara'a xarfan min kitaabillaah hal xaraf oo kitaabka ilaahay ka mida qofkii akhriya falahu bihi xasanatun wuxuu xarafkaas ku helayaa ajir waalxasanatu bicashri amhaaliha ajirka uu helayaana waa 10 laab ajirkiibaa 10 mar loo laablaabayaa laa aquulu aliflaamiim xarfun aliflaamiim waa hal xaraf odhan maayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaakin alifun xarfun wa laamun xarfun
wa miimun xarfun aliftu waa xaraf laamku waa xaraf miimtu waa xaraf alif laam miim kaliya hadduu yidhaahdo halkii xarafba 10 ajir baa ugu yar inta laga siinayo meequu helaa marka 10 ajir ayuu ka helaya waaya macno ajirkaa faraha badan baa laga helaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaas ayuu qur-aanka akhrintiisa iyo ku dadaalidiisoo la badiyo ku tilmaamay qur-aanka markii aad akhridood dhammaydo oo inta hal khidmo aad dejido waxaa sunnaa isla markii in lasoo bilaabo haddana kor aayado dhowr aayadood laga akhriyo suuratulbaqara oo kaleeto iyo laga akhriyo maxaa yeele waxaa jira nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis ou yidhi acmaasha yaa ugu fadli badan bay asxaabtu dheheen markaasuu nabigu yidhi alxaalulmurtaxil ruuxa degayo haddana raranaya markaasuu nin saxaabiyaha su'aalaya wuxuu yidhi wamalxaalulmurtaxil ruuxa dega oo haddana rartaayou yahay nabiga ilaahayow calayhi salaatu wasalaam qaala markaasuu yidhi alladii yadribu min awali alqur'aani ilaa aakhirihi kullamaa xalla irtaxala waa ruuxa qur-aanka markii uu dhammeeyo waa ruuxa qur-aanka dhammaad iyo bilow markuu dhammeeyo qur-aanka ayuu caada litilaawatihi min awalihi qur-aankiibuu soo bilaaba markuu dhammeeyo ou haddana soo bilaabaya mar kasta wuxuu la mid yahay ruux meel degay ka sii guuray ajirkii ka kala go'in maayo waa sidii mucallimiinta lagu arki jiray markay subaxa qur-aanka ay inta bilaabaan ay akhrinta qur-aanka iyo ay dhammeeyaan haddana koobay ka soo bilaabaan xoogaa yar bay baqara iyo ka akhriyaan iyo suuratulfaatixa iyo markaasay haddana waxa weye ajirkuyou kaa joogsanin weeye qur-aanka marka waxa weeye fadligiisa lama soo koobi karo suuradaha intaan marayno ayaan suurad walba fadligeeda iyo wanaaggeeda iyo waxyaabaha ku soo arooray oo wanaaga aan ogaa doonnaa waxaa qur-aanka la rabaa in aadaabtiisa la ilaaliyo oo jaamaca adoo weese qaba aad soo qabsato waxaad arkaysaabaa ayaa macnaha yeeraya oo la maqlayaa in dad aan macnaha daahirahayn jaamicii iska qabsan hayaan oo waxa weeye jaamicii lagu tuurayo meelaha aan munaasabka u ahayn la yska saarayo oo alaab laga kor marinayo oo meelihii qashinku yiilay la kor saarayo taasoo dhan khatarteeda leeda walaalayaal weliba ihaan ahaan haddii loo sameeyo iyo istikfaaf oo jaamaca meesha qaaduurada iyo qashinka iyo la yskaga tuuro waxay ka mid tahay masaa'isha kutubuhu ay ku qorayaan qofku inuu ku ridoobayo oo iimaankiisi iyo diintiisii ay ku lumayso sidaa daraaddeed tafsiirka aan akhrisanayno uu barako noogu yeelan karaa waxaannu ku bara karnaa waxaan qur-aanku uu qiyaamada noogu shafeecayaa markaan ixtiraamkeeda yeelanno oo aadaabteeda aan yeelanno oo camalfalkeeda aan yeelanno oo istiqaamadeeda aan yeelanno ilaahay ha noo yeelo waxaan isku dardaarmaynaa walaalayaal gebi ahaanteen oo aan muslimiintoo dhanna u dardaarmaynaa inaan jaamaca qur-aanka ah kulligeen wada xurmayno inaan jaamaca qur-aankaa ku camal falno inaan waxa weeye kalaamka ilaahay waajibaadkiisa qaadanno wuxuu naga reebayana aan ka tagno aanna asaga waxa weeye ku toosnaanno qofkii aan oqooninna ou xifdiyo macnihiisa haddaad alfaaddii taqaanno ood qur-aankii akhrin karto laakiin fasirkiisa aadan oqoonin laa qiraa'ata min kayri fahmi almacnaa akhrin oo aan macnihii la fahamsanayn faa'iide male baa la yidhi waa inaad qur-aankii wuxuu ku amrayo wuxuu kaa reebayo aad isku daydaa inaad culuumtii barato culuumta mukhtasaraad bay leedahay aadaab loo barta bay leedahay waxa weeye ee meesha ugu korrayda lagama bilaabo waa inaan aadaabteedii iyo kulli ilaalinnaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiyahoo la yidhaha xaarithul acwar la yidhaahdo ayuu maalin la hadlayy markaasuu wuxuu su'aalay waxa weeye ee wuxuu soo maray masaajidka dadkiibaa meesha dhoobnay sayid cali buu u soo galay oo masaajidka jooga dadkiina ay masaa'il iyo ka hadlayaan markaasuu yidhi yaa amiira almu'miniin miyaadan u jeedin buu yidhi dadku waxa ay sheekada iyo waxa ay samaynayaan markaasuu yidhi nacam markaasuu yidhaahday waxaan ka maqla buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam asagoo dhahaya buu yidhi asagoo dhahaya alaa innahaa satakuunu fitna waxaa iman doonta fidno iyo masaa'ib markaasaan ku idhi buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ku idhi buu yidhi
rasuulka asagoo su'aashii su'aalay calayhi salaatu wasalaam waxaan ku idhi buu yidhi nabiga ilaahayow fidnooyinkan iyo masaa'ibtan iman doonta maxaa looga badbaadin karaa waxaa hadalka dhahaya waa acwaraa wuxuu yidhaahday nabigaan u soo galay xadiidkii iyo rasuulku u warinaya asxaabtii markaasaan su'aalo idhi masaa'ib baa dhici doontee maxaa looga badbaadayaa markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kitaabullah ilaahay kitaabkiisa dhib kasta looga badbaadaa fiihi naba'u maa kaana qablakum ummadihii idinka horreeyey khabarkoodii baa ku sugan wa khabaru maa bacdakum ummadaha idinka dambeeya khabarkooda iyo sheekadooda ku sugan wa xukmu maa baynakum adinka dhexdiinna xukunka ah baa ku sugan huwa alfaslu laysa bilhasli kitaabka ilaahay waa mid xaqa iyo baadilka kala saara dheeldheel iyo kaftanna ma aha man tarakahu min jabbaarin qasamahu allaah qofkii ka taga oo faasiqnimo uga taga ilaahay baa qasbayo oo baabi'inayo jejebinaya waman ibtaqa alhudaa fii kayrihi adallahu allaah qofkii kitaabka ilaahay meel aan ahayn hanuun ka raadiya oo waxa weeye qodobo kale oo gaalo iyo waxaan diin lahaynu soo qoreen diin ka raadiya iyo joornaallo iyo diin ka raadiya inta kitaabka ilaahay daba mareeyo qofkii sidaas sameeyo meel kale ka raadiya hanuunka adallahu allah ilaah baa luminaya wahwa xablullaahi almatiin waa xarigga ilaahay oo xoog badan buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa xarigga ilaahay kitaabka qur-aanka walaalayaal waa xarig ilaahay noo soo dejiyey oo aan nudgo' lahayn oo waxa weeye curwatul wuthqa baa la yidhaahdaa waa xablullaahi almatiin buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam wahwa dikru alxakiim waa ilaahay dikrigiisii qur-aanku oo haddana allaha xakiimka ah ama dikriga ilaahoo wanaagsan weeye ama waxa weeye waa dikriga ilaahay oo xakiimka ahay oo wanaagsanaay oo xigmadda badnaay wahwa asiraadu almustaqiim waa jidka toosan qur-aanku huwa aladii qur-aanku midkii weeye laa tasiiqu bihi alahwaa hawooyinku ma leexi karaan hawo iyo balwad iyo adduunyo ma leexido qur-aanka walaa taltabisu bihi alalsina carabyaalku iskuma qasi karaan walaa yashbacu minhu alculamaa culammadu kama dhergaan si kasta qofka ahludiinka hadduu u akhriyo dhergi maayo walaa yakhluqu calaa kahrati raddi kulaalaabashada lagu badiyo qur-aanku kuma duqoobo walaa tanqadii cajaa'ibuh cajaa'ibtiisi iyo fadaa'ishii si kasta haddii looga sheekeeyo ma dhammaatuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam huwa aladii lam tantahi aljinnu idaa samicadhu waa midkii jinnigu xataa aamusi waayey markii nabigu asagoo akhrinaya ay maqleen ilaa ay ka dhahaan innaa samicnaa qur'aanan cajaba yahdii ila arushdi ay dhaheen qur-aanka qofkii ku qawla man qaala bihi sadaq run buu sheegay waman camila bihi ujira buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qofkii ku camal falana ajir baa laga siiyey waman xakama bihi cadala qofkii ku xukmiya ummaddana caadilnimuu ku dhaqmay waman dacaa ilayhi hudiya ilaa siraadin mustaqiim qofkii qur-aanka lagu hanuuniyana jid wanaagsan ayuu qaado lagu hanuuniyey faqudhaa ilayka yaa acwaru ayuu yidhi qaado ayuu yidhi waxaan rabaa xadiidka waxaa warinaya waa sayid cali baa macnaha nabiga ka soo wariyey acwaruna u sheegay acwar ayuu u sheegay macnaha qisadan weeyi oo wuxuu yidhi sayid cali xadiidkan baan ka maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaba walaalayaal qur-aanka kariimka ah inaan ku dadaalno oon ku camal falno oo tafsiirkiisa aan baranno oo si wanaagsan aan u akhrinno ayaan insha allahu isku dardaarmaynaa jannadii ayaa lagu gaarahayaa xaraf walboo lagu dhawaaqo ugu yaraan 10 ajira ayaa laga helayaa iyo ka sii badan xaraf walba oo la akhriyo qofkii marka maalinkii 2 aayadood kaliya akhriya 2 halaad oo geela asagoo sadaqeeyey ka badan ayuu helayaa qur-aanku waana dhumi ogyahayo qaybtii aad shala baratay horay buu kaaga lumi ogyahay ha lagu laalaabtuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam tacaahaduu haada alqur'aan fawalladii nafsu muxammadin biyadihi lahuwa ashaddu tafallutan min alibili fii cuqulihaa neefka geela ah oo la dabray oo dabranaa jiroo dabarka laga furay haddii dabarka laga furo horay buu ka cararayaa
sida neefkaas u faka og yahay ka daran oo markii dabarka laga furo oo cararahayo quraankuna waa ka sii daran yahay buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam ee quraanka ku laalaabta oo quraanka akhrintiisa badiya ayuu rasuulku leeyahay sallallahu alayhi wasallam haddaba waxaanu isku dardaarmaynaa quraanka fadligiisu aad u fara badan yahay qiyaamadu imaanaya waa ku shafaaco qaadahaya sida rasuulku ba yiri calayhi salaatu wasalaam iqra'u alqur'aan war quraanka akhriya fa innahu ya'ti yawm alqiyaama shafiican li ashaabihi wuxuu qiyaamada imanaya asagoo u shafaaco qaadaya dadkii ku camal fali jiray oo akhri jiray ayuu u shafaaco qaadaya suuratu aalu cimraan iyo suuratu albaqara ugu soo horeeya xadiidka imaamu muslim baa wariyey xadiid kaloo imaamu muslim warin hayo wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ina alladii midkii ayuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ina alladii qofkii asagoo ka hadlaya wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam yu'taa yowma alqiyaama bilqur'aani wa ahlihi buu yidhi qiyaamada waxaa la keenayaa qur'aanka iyo ahalkii akhri jiray oo ku camal fali jiray aladiina kaanuu yacmaluuna bihi fi ddunyaa fiir xadiidka qoladii qur'aanka ku dhaqmi jirtay baa la keenayaa adduunka markay joogeen taqdumuhu suuratu albaqarati wa aali cimraan tuxaajaani can saaxibihimaa waxaa ugu horreeya suuratu albaqara suuratu aali cimraan waxayna u doodayaan oo ay wax u dacwoonayaan oo u shafaaco qaadahayaan qofkii ku camal fali jiray xadiidka imaamu muslim baa wariyey marka qur'aanku fadli badan buu leeyahay casharada kale insha allahu ayaan tafsiirka iyo ku qaadan doonaa ilaahay ha nagu anfaco kuwa qur'aanka ku dhaqma barta ummadda sii bara kuna camal fala fadaa'ishiisana ku dadaala wanaaggiisana ku dadaala waajibaadkiisana ku dadaala ilaahay ha naga dhigo dhammaan muslimiintoo dhan waxaan u dardaarmaynaa kalaamka ilaahay in la xurmeeyo kitaabka ilaahay in lagu camal falo in kitaabka ilaahay la barto in la xifdiyo in waajibaadkowna farayo la qaato si aan u gaarno yoomka qiyaamo oo aan u baahannahay naxariista ilaahay mar walba waa u baahannahay yoomka qiyaamo oo meel laysku amaalmaryo la joogo meel oo lagu camal falan aan la joogin si uu kitaabka ilaahay badbaado iyo samatabax noogu noqdo annaga oo dhan ayuu noo yahay barako iyo samatabax oo noo yahay asaga ayaa lagu nabadgeli karaa asaga ayaa lagu hanuuniyaa ummadda asaga ayaa lagu intifaacaa asagaana loo soo deji inaan ku dhaqanno inaan isku xukunno inaan ku camal falno inaan ummadda barno marka asaga waxa weeye aan xifdinno laasiyamaa kuma sii jiraan maanta oo waxa weeye carruurteenna iyo ahalkeenna nala kula dagaashan yahay oo gaaladii la dhex joogo oo isku dayayaan inay kalaamka ilaahay naga fujiyaan waxa weeye hooska xariiqa inaad jaamaca qur-aanka kalaamka ilaahay awlaaddiinna xifdisiisaan oo qur-aanka waxa weeye laga dhigto zaad laga dhigto casharkeenna caawa inta ayaan ku soo koobaynaa wallaahu aclam bisawaab wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu